si kastay ahaataba codkan hadda arkaysaan aa wada dhegeysanaysaan oo intaas soconaya mar rabo xogo badan baa ku kaydsan sidaa daraadeed intaa yartaa wada dhegeysano. Okay, wuxuu socdaa codkan 6 daqiiqo soconaya marka inaan inta yarta kasoo qaato waa inta yar ee barnaamijkan ama muuqaalkan aan duubay kaliya qusaysa, inta kale waqtiyadeeda imaanayaan. Okay, barnaamijkan Mareykan Sharma waa loo soo bandhigay, dad baa usoo bandhigay oo isla familka ah in qaabkan uu ku baxo. Marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daje profile kaga bulshada sar google gal magaciisa soo bar boqorka whatsapp yahay bulshada waa taga soo barbar waxa kasta ay ku tahay wanaagsan fadlan haddii tahay markii ugu horreysay channelka soo booqan sax sharmada kaga codsanaya like subscribe share iyo comment intaas dhan waxay tahay dhiirigelin. sidoo kale talaabaan fikrada aysan comment ahaan ugu soo qoro, sidoo kale Instagram-kayga soo booqato. saaciwaanka hore kusoo aragteen ba maalmahan waxa social media haysta oo siyaabo kala duwan aga falcelinaya safarka Sharma Boy Mareykanka ku aaday. Marka laba siyaabood bay dadku aga falceliyeen oo aan arkay muuqaalaha laga soo duubay qaar YouTube lay oo caan ah iyo dad iska caadiya oo siyaabo kala duwan uga hadlay. qaarkoodna waa qaar hadal aan sax ahayn loo dhiibay, qaarna waa qaar aan xog hayn oo yani iska hadlay bay wada ahaayeen. arrintaas baa rabaa inaan waxa weeye xaqiiqdeena ka dabageeyo anigoo markaas inta taabanaya oo waxa weeye aan ku fogaanaynin. arrintaas safarka Sharma Boy dad waxay leeyihiin waxa uu aaday show oo waxa weeye show ku qabanaya oo soo laabanaya. taas waa midda koowaad. midda labaad waxaa la yiri sheeg oo qaarkood ku eedeynayeen oo culamo ma ahayn laakiin dad culamo u eg ay lahaayeen waa ereyga ku qoran boorka waxa ku qornaa erey dheheen kaniisadaha ururka diimaha kaniisadaha wax noocaas baa marti qaaday. haddaba waxaas dhan way ka bedelan tahay, wayna ka duwan tahay. arrinta saxdaana sidaas ma aha. arrinta Sharma Boy ee Mareykanka waqti dheer bay soo socotay. laba qof baana sabab u ahaa Sharma Boy inuu Mareykan tago. laba qof baa sabab u ahaa. waxaa laga yaabaa dadku hadalkan inay ka dhadhici weydo, laakiin xogaha aan hayo ma rabo inay wada baxaan. labada qof oo ka dambeeyay waa Daari Calasow iyo Malyun Maanka. safarka Sharma Boy inuu Mareykan tago maanta ayaga sabab u ah, yani way ka dambeeyaan oo way kaxeeyeen oo Mareykan bay geeyeen ma aha, laakiin sabab wax walba sabab bay leeyihiin. inuu maanta Mareykan tago sababteeda waxa iska lahaa Malyun Maanka iyo Daari Calasow. Malyun Maanka laba siyaabood bay u leedahay sababkeeda. hal sabab oo kamid ah in sheegay, sababka labaadna ma sheegayo, labaadna ma sheegayo, munaasibna ma aha. Daari Calasow hal sabab buu ku leeyahay, sababtiisana hadda ma sheegayo oo dib baan ka sheegay iyadana waqti kale oo markaas loo baahan yahay ka hadlay hadda ma aha. laakiin hal sabab baan sheegayaa oo Malyun Maanka ah. safarka Sharma Boy ee Mareykan wuxuu soo socday wax hadda ma aha, waqti muddo dheer buu soo socday. ilaantii uu muqdisho ka soo baxayay oo garow imaanayay buu barnaamijkan soo socday. meesha la rabay naga baxan waxay Zambia ama Mozambique. muqdisho markuu ka soo tagay garow uu yimid wuxuu aaday Zambia halkaas barnaamijkii dacwadda oo Mareykanka ba socotay. intii dacwad socotay Sharma iska tagana waa dhilin yaraaye shil ama arrin shil ah buu wuxuu ka galay magaalada Zambia. taas isaga iyo nin dad isku dhow yihiin dhex maray. shilkaas oo la mid ah shil hadda ka hor gaalkacay ka dhacay oo ah sababtu gaalkacay u tagi waayey ama gaalkacyaba uusan u imaan karin. shilkaas shil la mid ah laakiin kaas xogaa yar ka duwan baa wuxuu ka dhacay Zambia. shilkaa markuu dhacay Sharma uu soo tagay wuxuu yimid garow kusoo laabtay. deedna kiiskii dacwadda ee yaalay Zambia ee Mareykanka xiriirka ahaa waxaa loo wareejiyey Djibouti. okay, sababta marka waxaan sheegayaa Malyun Maanka ay waxa weeye sabab uga ahayd. laba sababood wey, hal sabab baan sheegayaa. waa dadka sabab u ahaa maanta inuu Mareykan tago. marka anigu ma aqaan waqiila waqaala iyo waxa la yiri iyo waxaas ma aqaan. mar walba aan hadlayo xaqiiqada waan ka hadlaa. saasay tan xaqiiqada sida saxda ama soo gudbiye haaf kamid ah 99% waan kaydiyaa, hal kamid ah soo gudbiya xaqiiqadaas. safarka waxa loo wareejiyay Djibouti waa loo wareejiyay oo maadaama garow maalmihii dambeysay magaalo kale marka la waayay Mozambique baa ugu soo dhaweyd. Mozambique way noqon weyday. waayo Mozambique Zambia waa daris. shilka marka Zambia oo Sharma Boy ku galay dartiis baa u suurtagelin in Zambia iyo Mozambique halkaas baa dacwadda laga sii wado. sidaa darteed baa Djibouti lagu soo wareejiyay. okay, sababta marka Malyun Maanka ay waxa weeye sababta waxa weeye Sharma Boy ana ani xaqiijinaya kuma tagin show baan qabanaya waa soo laabanaya kuma tagin waxa la yiraahdo kaniisadaha qaaday iyo fanaaniin iyo dad baa wax u ururiyo qaadana meesha kuma imaan. haddii waxaa sameyn karaan
mar hore la sameyn lahaa mar hore intuu muqsho joogay intuu Zambia joogay intuu Garowe joogay baa wax dhan la sameyn lahaa oo yani wax iska khiyaariya ma jiraan kaniisada soo dacwaday ama fanaaniin Soomaaliyeed ama jaariyad Soomaaliyeed oo qaaday ma jirin arrintan waa arrin familiya waxaana qaaday gabar walaashiisa oo rawdo la yiraahdo oo Mareykan joogta gabadhaas oo Sharma Boy ku kaxaysay inuu yahay odaygeeda ama xaaskiisa lagu qaadayo يعني قبل ولا شيء حكوا قاسا وأنا كي حكوا قاسا أوكي هذه مركا إتاس تمادو فرصة وح مش إيمان كم مدام شرم وعدو بدن لي هاي وح إيمان يسا إلا يري هذا ورحاس كيسي بقول دعوته أو كان تاي مريكن شرم بوي أوكي لكن حاس بقول سوشيال ميديا يميلوا بنا عنك أو لو يقال فنان هذا هذا بس مركا عرفت أنا على الغرض إيمان بريك مالين عدو جيسا سنقول ميل يوصل مران baa waxa loo go'aamiyay in ay milyan maanka meesha ay ka baxdo ay firaaqayso marka waxay ahayd laba mas'alo mid dooro ama Mareykan dooro ama mustaqbalkaaga heerkaaga xaaskaaga dooro marka wuxuu doortay Mareykan runtii habeenkii fikradahaas keenayay anu fikradaas hada waa khaldanayna og laakiin ilaahay waxaan ka bariyaa dambi dhaaf walaashay dumaashiday milyan maanka in cafis baan ka weydiisanaya dadkii hoos ka saxay baan kamid ahaa oo hadii ma garanaysa nin dhalinyaro oo saaxiibkay ah oo horumarkiisa u arkay inuu Mareykan maanta tago kuna tago dacwada noocaasa si dacwada loogu tagana ay sabab u tahay milyaanka in si wada joogi karin oo markaas meesha ka baxdo go'aanka habeenka la wada qaatay bay kamid ahayd okay marka go'aanka la wada qaatay de gabar maadaama ay jirin sabab ay maanta lagu dalaaqay marka qof gabar furaysa ama heer kala tagaysaan waa inay sabab timaadaa adiga wax ka soo propagandaha uu sameeyay aha ahaato inuu yiraahdo inta live soo gaya kininiyaal bixintay iyo inuu yiraahdo sheeg adiga nin kale xaafadda mariya barnaamijkaas oo ahaa barnaamij il rabay in dadka marka lagu indhasar caadiyo ama lagu maaweeriyo laakiin is waxba ka jirin laakiin sabab baa marka loo raadinayay sababahaas oo dhan marka ayada maadaama ay berika aad waxaas oo dhan oo dacayad been ah haddana waxyaabo kale u sii dheer yihiin habeenka go'aankaas la qaatay Sharma iyo dumaashiday wixii halka ka dhacay waxa og dad yar oo kooban baa og dad yar oo kooban baa og way soo baxday Muqdisho aaday ayadoo wixii halka ka dhacayna de boqolkiiba 99 dadku aysan ogeyn boqolkiiba hal ayaa og yahay inta ogna yihiin in aniga Sharma iyo yar oo kooban oo familka bas ay og yihiin si kasta ahaataba milyan sababtay aga tagtay Garowe ama Sharma u kala tageen waxay ahayd arrintan Mareykan waxay ku ahayd tir hortaagan waana sababti loo ay meesha ka baxday warqadeeda loo siiyay sabab la'aan ayadoo markaa ama aflagaado loo geystay waxyaabaha hadda saani sheegan ay kala jireen laakiin aan rabin afkayga soo marin aan rabin arrimahaas dhan baa jiray si kasta ahaataba codkan hadda arkaysaan aad dhageysanaysaan oo inta soconaya mar rabo xoga badan baa ku kaydsan sidaa daraadeed inta yarta wada dhageysano okay wuxuu socdaa codkan 6 daqiiqo soconaya marka inaan inta harta ka soo qaato waa inta yar ee barnaamijkan ama muuqaalkan aan duubay kaliya qusaysa inta kale waqtiyadeeda imaanayaan okay barnaamijkan Mareykan Sharma waa loo soo bandhigay dad ba u soo bandhigay oo isla familka ah in qaabkan uu ku baxo marka sababka uu ku baxay Sharma Boy waxay ahayd oo Mareykan ku tagay arrin dacwo ah gabar walaashiisa ay qaadaysay uguna qaadaysay waa ninkeyga ahaan ay ku qaadaysay hadii marka Sharma Boy maanta lagu qaado waa ninkeyga Mareykan ku tago milyan ma ka dhow meesha markaas ma imaan karso waxay noqonaysaa in la yiraahdo waxaan social media way ku jiraan wax aan loo garanayo in la yiraahdo ninkan xaas buu leeyahay waa la yaqaanaa waa gabar fanaanada cadow buu leeyahay waxa meel badan laga soo mari karaa si istaa u dhicin weyn milyan ka meesha ka baxda marka milyan-ka waa laga gardaran yahay runtii waxyaabo badan waxa jira afkayga hadda aan soo mari karin oo badan way jiraan laakiin si kasta ahaataba gabar waxay laga khaldan yahay dulqaadkeeda iyo samirkeeda iyo wanaageeda wax ka ogaanaysaan markii ay tagtay Muqdisho waxba kama saadal kama falcelin si kasta ahaatana markii la yiri say wax jiraan waxay tiri bajaaj baan ka dhacay runtii waxay igu noqon weyday arrin garanaysa aniga maskaxdeeda ka weynaatay inuu qof dumar ah oo tanley ah ay dhibkeeda dhaawaceeda qarsato ay tiraahdo bajaaj baan ka dhacay ninka saaxiibkeena kan la taagan yahay kininiyaal bay cuntaa iyo xaafadii niman kale ay damaray iyo barnaamijkaas uu la yimaado oo aflagaaday jaifa ah heerka dadka si wanaagsan baa lagu kala tagaa laakiin telefoon loo soo galo aflagaadada noocaas loo geystan waxay ahayd arrin runtii aan isku fahmi weynay anigana u arkay arrin runtii aakhirana dhibiga imaan adduuna dhibiga imaanaysan iyo wanaagsaneen si kasta ahaataba arrinta Sharma Boy ee Mareykan
ma qusayso jaariyad ama intuu tago kasoo laabanaya ma jirto waa arrin dacwada gabar walaalkiis ay qaaday ninkayga ahana lagu qaaday sidaa daraaddeed malwiimaanka halka aga baxday arrin labaad sababka labaad ee malwiimaanka sababta u ahaydna waa sababta hadda aan rabin inaan sheego laakiin waqtigeeda ayaan ka hadli doona anigoo markaa soo bandhigi doona maqal iyo muuqaal aan horey loo arag horeyna loo maqal taas oo markay dadku arkaan ay fajici doonaan madaxna qabsan doonaan marka inaan waxa weeye arrintaas inii xaqiijiya muuqaalkan duubay propagandada magaalada ku jidha ee ah showb kusoo qabanaya soo laabanaya iyo jaariyadaha qaaday iyo dad baa u dacwooday iyo fanaaniin baa qaaday iyo waxba kama jiraan gabadha walaashiisa rawdaa qaaday waa ninkaygii baa lagu qaaday si marka barnaamijka u hirgalana waxaa loo arkay malwiimaanka inay meesha ka baxdo wayna ka baxda marka waxa weeye ambassador American iyo Mareykan raaxada iyo barafka iyo qabowga iyo noloshan kala dooro marka taas bay mid doortay marka tan kale calaam su'aal baan saaraya oo waqtigeeda ka hadli doona marka arrintaas saas ayay ku soo dhamaatay oo yani ma jirto wax intuu tago oo ka soo laabanayo iyo barnaamij nacsan ma jiro dee wuu soo laaban karaa oo wadamada u imaan karaa laakiin ma jirto in magaranaysaa yani qof marka loo dacwoodo dadkii yaqaan way yaqaanaan baasaboorka airportka lagu siiya amudiirka marka joogo qofka baasaboorka la siiya deedna xusuulanayso marka meelo kale aado ila qofku waa fanaan waa siyaasi waa diblomaasi qof waxyaabo badan buu leeyahay qofku marka barnaamijkaas kale uu ku jiro ama social media uu ku jiro barnaamij badan waqtiga darada sharciyada waa loo boobsiyaa si uu markaas ama show gobolka kale ugu soo qabto wadamo kale u aado dakhli u soo geliyo canshuuro u bixiyo show qabto alna canshuur dad geliya canshuur baa laga qaadaya meeshuu geliya canshuur baa laga qaadaya tilaabo walba qaadaya canshuur baa ku socota waa wadan nidaamsan sidaa daraadeed wadankii maadaama uu dakhli ka soo gelayo wax u faarsan sharciga hore laga siiyo ka bacdi inuu show ku qaban karo meelo kamid ah qaaradda Amerika Yurub Africa Asia meesha roo marka uu tagi karo qofkii marka had way fuudahay uu tago miiskan lagu siiyo biri ama saadama uu soo laaban karo laakiin uu arkay isaga talada oo marka uu ahayd marka ani barnaamijka Mareykanka iyo horgalo baasaboorkiga aan qaato wax walba isku haytoosan baan arrintan dib ugu soo laabanaya waa sida aqligiisa fikirkiisa ah laakiin waxyaabo badan baa jiray dadka ogeyn marka mar rabo inaan ku dheeraado intaan ay muuqaalka soo gabagabeynaya arrin xaqiiqada intaas ay ahayd inta muuqaal mumkin doona waxaan kaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عبد الفتاح بلشاوي 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 بلشاوي عبد الفتاح 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 بلشاوي